أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعجلتي اللبات أو مانتا أو جمعها أنا عاملين صدراي إن شاء الله marka hore waxaan rabaa inaan idin sheego ujeedada ugu weyn oo igu kaliftay inaan ka hadlo arrimo ijtimaaci ah ama bulshada arrimo dhibaatooyin bulshada ku saabsan ah waxa ugu wacan laba arrimood midda koowaad aqoonta ama warbixin iyo aqoon waa wax qofka uu fursad u heli karo loona baahan yahay intuu dunida ku nool yahay inuu la wadaago walaalihiisa ama dadka kale iyo tan labaad waxa waaye waxaa beryahan soo baxay social media markii fursadihii la helay oo contactigii uu batay waxaa soo baxay in dadku ay kala faa'iidaysan karaan iyo in warbixin xun ay fidi karto ama dadku si qalad wax looga dhaadhicin karo marka waa waajib saaran qof walba oo ilaahay wax yar fahamsiiyey inuu la wadaago walaalihiisa maxaa yeelay aqoon waa waxa qofka uu yaqaano macnaheeda ma aha inuu qof kale wax dheer yahay waa wax qof kale fursad u heli waayo inuu arko iyo asiga ilaahay waafajiyey inuu ogaado waxay noqon kartaa warbixin iyo waxay noqon kartaa maxay dhahaan hadal cusub akhbaar cusub oo adiga aad meelka akhrisay laakiin qofka walaalkaaga ah uu mashquulsan yahay ama hurdayo ama maaragtay fursad u helin marka dadka fursadahaasaa la isdheeryahay laakiin bini aadamkao dhan waa siman yihiin waa isku qiimo marka si loo gaarsiiyo waxyaabaha diinta islaamka ay caan ku tahay waxaa ka mid ah inay aada uga hadashay dadku inay sinnaadaan dadku in ay qiimaha bini aadanka inuu noqdo qiimo isku wada mid ah laakiin si qalad ayaa laga yaabaa in loo macneeyo fariinta ay diinta wadato waxaan rabaa maanta inaan soo qaato arrimo badan oo ku saabsan social problem ayaan ka hadli doonaa markii hore waxaan hore uga hadalnay waxbarashada dhibaatooyinka waxbarashada maanta waxaan ka hadli doonaa arrimaha qabiilka oo ah dhibaato aada u weyn oo maaragtay dhinaca bulshada ama society-ga oo soomaalida aada u taabatay oo siyaabo kala duwan loo fahmay dadka qaarkiina aysan fahamsaneen qaar si loogu sheegay ujeedadeeda ma aha inaan wax daaweyno hadda ama aan dhaleecayno aan dhahno waxaan waa qalad waxaana waa sax ujeedada waxa waaye inaan marka hore soo bandhigo sida arrinta ay ku timid iyo ku bilaabatay dhakhaatiirtu waxay wax daaweyn karaan marka hore habkay wax u daaweynaan maxay tahay marka hore cudurka waxyaabaha keenay ayaa la darsaa analyse la sameeyaa marka analyse ayaa wada sameynayna aniga iyo idinka wixii su-aal ahna facebook aad igula soo diri kartaan insha allah marka qabiil laga hadlo Oxford Dictionary wuxuu ku macneeyey ama qaamuusyada adduunka waxay ku macneeyeen qabiil inuu yahay dad kooxa isku tagay oo wadaaga ab isir ama maaragtay hal qoys oday wada dhalay haddana sii wada dhasheen oo sii batay oo markaa ku abtirsada hal waxay noqon kartaa dad meel ku wada kulmay oo ku heshiiyey inay isku qabiil yihiin ayagoon dhab ahaantii aan ogeen marka mostly waa psychological issue maxaa yeelay ma aha haddii laga hadlayo 500 sano qof joogayna ay jirin waa wax dadku ay u arkeen inay tahay farxad ama ammaano tii ayaa si psychologically waxay noqotay fiican marka waxaan soo qaadanaynaa sababta ay ku timid iyo waxyaabaha keenay iyo habka ugu fiican oo loo maaragtay looga hortegi karo dhibaato haddii ka imaan karto in la dhaho la dhaleecay dadka badi waxay ku leeyihiin qabiilka ma fiicna qabyaalada ma fiicna qabiilka dhibaataasuu leeyahay marka in wax markii la mamnuuco bini aadamku waxay leeyihiin behavior ah inay sii jeclaadaan wixii laga reebay laakiin waxaa ugu fiican in la tuso wax walba xumaatada ay leedahay sidee ku timid ilaahay wuxuu abuuray aadam iyo xaaba maalinta la abuuray ilaa iyo dadku way sii dhalayaan oo sii socdaan marka ka fikir adiga waxaad ka dhalatay qabiil hebel ama wadanka Soomaaliya ka dhalatay hadduu maalintii uu ilaahay ku abuurayay oo caloosha hooyada lagu abuurayay haddii ay noqon lahayd in Nepal ama Pakistan uu ilaahay kugu talagalay inaad ku dhalatay maanta adigoo weyn oo Karachi maraya ama maaragtay wadanka Nepal ku nool
ma laga yaabo inaad dhahdid aniga wadankan ma rabo, waxaan ka jeclahay dad Soomaaliyeed. maxaa yeelay meeshii ilaahay kugu talagalay waa inaad, ma ahan wax adiga aad dooratay meesha aad ka dhalatay, laakiin waxaad dooratay qofka shakhsiyadda adiga aad tahay. marka qofka siduu meeshuu ilaahay ka abuuray iyo xaaladdu ku dhashay, faamilka uu ku dhashay, maaha wax uu asiga shaqaystay, waa wax uu ilaahay ugu talagalay. laakiin noloshiisa waxay bilaabanaysaa markii qofka uu dhasho, uu xoogaa weynaado, hadba sida uu dadaali karo. taa marka hore haddii aan fahamsannahay, waxaan ogaanaynaa qabaa'ilada aan isu qeybinay, qof walba nin waliba nin doortay oo dhahay aniga qabiilkaasaan rabaa ma jiro. qabiil walbana qiimuu leeyahay. dadkuna waa dad bini aadan ilaah wada abuuray, loo baahan yahay inay fahmaan arrintaa. marka falsafada qabiilka haddii aan usoo noqono, waxa waaye arrinta ugu muhiimsan in la ogaado waxay tahay, maxaa ugu wacan in Soomaaliya ay ku dambeyso shucuurta qabaliyada ama dareenka qabiilka. waa arin qof walba uu inkirayo ama uu rabo inuu dhaho arrintan ma jirto ama qiimo male. 10 milyan oo Soomaali nin waliba dal sheekaysto waxay ku leeyihiin qabiilka faa'iido male, qabyaalada faa'iido male. waana wax aad muhiim u ah nolosha shakhsiga Soomaaliya, oo aan ognahay 30 sano ugu dambeysay ee dagaalada iyo dowlad la'aanta approximately ay ka jireen. dad badan ayaa u dhintay, dad badan ayaa u barabaxay, dad badan ayaa u dhaawacmay, ilaa iyo hadda dad badanaa loo xumeeyey, qaaraa loo dilay. marka hadday ahaan lahayd waxaan macno lahayn, ma sababi kar lahayd dhibaato intaas baaxadaas weyn leh. marka waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay, maahan in laga hadlo dhibteeda, waxaa loo baahan yahay waxyaabaha keeni kara in la ogaado. qofka bini aadanka wuxuu nool yahay, markuu nool yahay, marka hore ilaah baa abuuray, diin baa loo soo dejiyey, inuu ilaah ku kalsoonaado, inuu risqiga ilaahay uu wato, wax walba qorshihiisa bini aadanka inuu ilaahay wakiilka yahay. taa isagoo aaminsan ayaa haddana dadku waxay fursado ayay uu ilaahay ugu talagalaa. qofna waa nin maalqabeen ah, qof waa faqiir, qof ilaahay caqligu siiyey, qof caqliga sidoo kale sida qofkan oo kale ma laha. dadku way kala duwan yihiin, laakiin waa la wada jihaadayaa. nolosha waxaa loo ordaya waxaa waaye in iimaan iyo diin fiican lagu noolaado, noloshiina si fiican lagu noolaado. maxaa yeele noloshii dadku markay bataan ciriiraysay noqonaysaa. waxaa laga yaabaa kheyraadkii wadanka inuusan ku filnayn ama ciriir uu ku noqdo, ama habkii loo heli lahaa. marka dadkii taariikhiyan nolosha weligeedba bini aadamku way isdili jireen. meel walba, wadda walba waxaa lagu dagaalami jiray waxaa waaye nolol fiican siduu qof walba uu noolaan karo. Soomaaliyana kama maqna. waxaa ka jira tartan ah nolosha sida ugu fiican qofku uu heli karo. waxaa jira tartan maaragtay cabsi ayaa jirta. marka qofka bini aadanka Soomaaliya waxay noqotay markuu qabiilka dhashay, qabiilkiisii ayaa wuxuu siin jiray waxyaabo fara badan. markuu dadku waxay u kala baxaan dad reer miyi ah iyo reer magaalo. waxay aada ugu badan tahay reer miyiga. maxay reer miyiga way ka fog yihiin noloshii magaalada, marka noloshoodii way ka duwan tahay tii magaalada. ma jirin booliis meel walba taagan. noloshu waxay ahayd wixii ka horeeyey 60kii mid iska socota. marka dadku waxay u kala noolaayeen inay helaan kheyraadkii ilaahay ugu talagalay, sida biyaha iyo maaragtay ugaarta xayawaanka. markay sii socdaan marka waxaa lagu dagaalamayaa biyihii. qof waliba qofka kale wuxuu keligii ma socdo. waxaa laga yaabaa markii lasoo weeraro, hadduu arko dad qabiilkiisa ay dareemaan reer hebel ayaa meesha lagu haystaa, inay weeraraan. ama haddii xataa uu sheego uu la og yahay qof ninkaas wuxuu ka dhashay qabiil hebel oo geesiyiin leh, ciidamo leh, waa laga bixi. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. wadamada Yurub oo dhan meel walba qabiilka waa laga wada dhashay. dadka group ay isku haystaan. intaanu qaran dhismin waxay badanaaba waxaa jiray qabaa'il is haysta oo ku midoobay, ha noqoto diin ahaan. kiristaanka waxay isku haysteen protestant iyo catholic. group badanaa jiray. yahuudda ilaa 100 sano qabaa'il isku dili jireen.
marka waa lasoo wada maray. marka Yurub maxay sameeyeen hadda tusaale ahaan wadamada Yurub aan ku noolnahay aan aragno wax walba inay nadiif tahay, in noloshu ay tahay secure, dagaalka inuu aad u yar yahay, iskor imaadka maxaa lagu gaaray waxa waaye shaqsigii ku tiirsanaanta qabiilka, ku tiirsanaanta reerka ayaa aad loo yareeyay. qofka shaqsiga individualka ah wuxuu mar walba ku tiirsan yahay qaranka ayaa la dhisay, canshuurta la qaado. qarankii wuxuu noqday awood fiican oo maaragtay balaaran uu leeyahay, oo qof walba uu ka fikiro daryaalka caafimaadka, nolol maalmeedkii meeshuu ka helaya qof walba la fiiriyay. marka qofkan bini aadamka ah ee ku nool muwaatimka ah waa sidii Soomaaliya iyo Africa, waxyaaba u baahan yahay oo dhan asaasiga waa la wada yaqaana. cunta uu cuno uu ku qasban yahay, wuxuu rabaa nolol dhalaalaysa, guri inuu maaragtay helo, inuu gaari helo, baabuur inuu ku socdo, waxyaabahaasoo dhan waxyaabo la shaqaysan karo. marka waxaa la sameeyey waxa waa haddii ay dhibaato soo gaarto qofkii, ma ahan xataa waalidiinta dadka uu soo ordayo, waalidiinta waxay siinayaan jaceylkii loo baahnaa, laakiin markii loo baahdo dhaqaale lagu kaalmeeyo iyo maaragtay security waxa wadanka ayaa diyaariyay. marka qofkii Europeanka haddaa fiiriso waxa waaye haddii shaqada ka dhamaato waxaa jirta hay-ad shaqo siinaysa. haddii habeennimo lasoo weeraro booliisku u yareen, booliiskiya howshiisu waxay tahay inay amnigiisii ilaaliyaan. haddii ay dhacdo ninkan lacagtii ka goodo u baahan yahay inuu lacag amahsado, qabiilka intuu tegi lahaa oo lacag loo soo aruuri lahaa waxaa la sameeyey bangi uu lacagta ka qaadana. haddii isagoo jidka socda lasoo weeraro samhelk societygii police ayaa meel walba jooga, isla markii uu waci karo u imaanaya. marka haddii dhibaatooyinkii shaksiga haysta si uu u socdo horumaro, dhagxaantii oo dhan haddii laga qaadi uu qaranka wax walba diyaar u leeyahay, baahidii uu qofkan u qabay qabiilkiisa ama dadkiisa gurubkiisa way yaraatay. waxaa la soo gaaray marka xiriir ka dhexeeya shaksiga iyo qaranka. marka qarankii jecel uu qabaa maxaa yeelay waxyaabihii o dhan uu siiyey, halka shaksiga Soomaaliga waajib ay ku tahay inuu jeclaado qabiilka. maxaa yeelay waa qabiilka wax walba, markii tacsi dhacday qabiilka lacag soo aruuriyey, markii meel isagoo dibadda jooga dhibaato ku dhacday cid kale u timid male, qabiilkiisii dad ka mid ahaa xataa iyagoon aqoonin qabiilkii u soo orday. marka weligiisba qabiilkuu jecel yahay, laakiin qof shaqsigana qarankii ama wadankii ayaa usoo gurmaday. marka haddii waxyaabaha waxqabadka qabiilka lagu bedelo si tartiib ah oo aan helno qaran u shaqeeya shacabka oo wax walba qaban kara, waxaa imaanaysa inuu magaca keliya soo haro, laakiin qabiilkii uu meesha ka baxay. waxqabadka qabiilka hadduu meesha ka baxo, baahidii loo qabay ayaa meesha ka baxay. waxaa soo haraya keliya faanfaankii ah aniga reer hebelaan ahay. taana waxay dhammaanaysaa markii wadankii la mashquulo, markii ay timaado waxyaabo badan oo lagu mashquulsanya. maxaa yeelay haddii dadku ay hayaan waqti dheer oo waqtigooda uu badan yahay, waxay fursad u helayaan inay kafee cabaan oo ay sheekaystaan, oo marka wixii laga sheekaysanayo wuxuu noqonaya waxyaabo. laakiin haddii dadkii la mashquuliyo, noloshii ay noqoto mid shaqo leh, marka qabiilka iyo qabyaalada waxaa noogu wacan in wadanka aan ka jirin waxa la yiraahdo maamul dowladeed ka fikira danta qaranka. haddii la helo maaragtay danta dadweynaha, haddii la helo maamul fiican oo dimuqraadi ah oo wada tashanaya oo ka fikiraya, lacagtii la helo ama wax soo saarka ugu soo horeeya, ama ha noqoto gargaar dibadda ka timaada, ama ha noqoto wax la shaqeeyey kheyraad soo baxay, lacagtaas intuu wasiir qaadan lahaa ama dadkii mushaaradooda la kori lahaa, haddii laga fikiro shacabka shaqaalaha ama wasiirada dhar caadiya intay haystaan berito lacag fiican ha la siiyo. laakiin maanta waxaa laga fikirayaa marka hore in aasaaska nolosha dadka ay ka maqan tahay in lasoo qaado. dadka dhibaatadu ay aada u badan tahay in lasoo kiciyo. matalan jahliga hadduu badan yahay in laga kharash geliyo, dadkii wax la baro. ugu yaraan inay qof walba inuu qori karo, wax akri karo, oo diintiina baran karo. taa waa muhiim. haddii jirto dad gaajo u dhimanaya, waa inaanay jirin dad guryo dhaadheer dhistay. marka hore aan ka fikirno in dadkii faqiirka ahaa ee noloshooda taagneed in lasoo kabo, kor loo soo qaado. marka waxaa imaanaysaa hadday soo kacaan asaaskii markii laga qaado oo noloshii caadiga ay timaado, marka qof walba inuu shaqaysan karo. dadkii kala rabay inay
waxyaabo badan sameeyaan. marka taas darteed ayaa muhiim ah wadanka inay soo gasho dhaqaalo fiican. dhaqaalahaas muxuu kusoo gali karaa inay shacabkii shaqeeyaan oo cashuur ay bixiyaan, inay dadaalaan, wax sameeyaan. laakiin dadaalkaas iyo canshuurtaas wuxuu imaan karaa markii la helo amni fiican, cadaalad fiican iyo hoggaan lagu kalsoon yahay. marka waxaan soo daceynayaa insha allah inuu ilaahay naga dhigo dadkii kala faa'iidaysta. cajaladdan sii gudbi, mar walbana wixii su-aal aad rabtaan igula soo xiriiriya. cajaladda ku xigtana waxay noqon doontaa waxyaabo kale oo muhiim ah. waxaan halkan ugu talagalay aan rabo inaan idinku soo qaado waxay tahay dhibaatooyinka dhinaca cultureka ama dhaqanka ee farqiga u dhexeeya Soomaaliya iyo wadamadan. waxaa kaloo soo xiga waxbarashada, waxyaabaha dhibaatooyinka ay dadku kala kulmaan markay rabaan inay jaamacado wadankan ka dhigtaan. caruurta markii ay wadankan ayagoo yar la keeno, waxyaabaha ugu waaweyn ee horjooga inay hor u socdaan. marka haddii aan wada shaqeyno oo aan su-aal isdhaafsano, aan iswada dhageysano, waqtigeena aan gelino wada hadal noocan oo kale ah, oo marka waxaa yaraanaya waxyaabaha facebooka lagu wado aan waqti dhumiska aan ka wada hadalno. waxaa kaloo jirta diinta islaamka waa diin muqadas ah oo 100% loo baahan yahay in aan si fiican ugu dhaqanno. haddii diinta aan fahamno, aan ugu dhaqanno si fiican, waxaa imaanaysa inaan ogaano waxyaabo macno lahayn oo haysano inaanay diinta ka mid ahayn, inay diinta ka mid tahay. maxaa yeelay qofka akhlaaqdiisa iyo siduu iyo fikirka uu fikiraayo, inuu shaqaysto, inuu dadaalo, inuu nadiif ahaado, inuu sida maaragtay wadamada Yurubta ay xooga saareen, waxaa ka mid ah inay beenta iska ilaaliyaan, inay waqtiga ka adkaadaan, subaxdii ay toosaan, hurdada ay ka kacaan, inay shaqaystaan. waxyaabahaasoo dhan waa wax diinta ugu horeeya priority ah. islaamka sheegaya qofka inaanu been sheegin, qofka inuu nadiif ahaado, qofka markuu la hadlayo qofka kale inuu mar walba isku dayo psychologically u akhriyo, soo dhabeeyo, inuu la kala amar qaato, wax la wadaago. waxyaabahaasoo dhan diintayna ku qoran tahay. marka ilaaha naga dhigo kuwii ku dhaqma. waxaa inoo ballan ah cajalada dambe insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.